بسم الله الرحمن الرحيم اسم قال داوشها بون halkani waa janalka halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin soo gudbin doono saaxiibayaal waxaa ka mid noqonaya faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee qasaare qaraxaasi ka dhashay dowladda federaalka Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay xayiraadii la saaray diyaaradihii tagi jiray magaalada Kismaayo xog cusub Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka badbaaday shirqool lagu dhaawacay sumcadiisa ciidamo cusub oo la wareegay xarunta gobolka Banaadir iyo saameyn xooggan ay ku yeelatay saadaqtoon arrintaasi qodobada ayaan idin soo gudbin doonaa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 25-ka bisha 9 2019 oo diyaar garooba saaxiibayaal faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran saaxiibada ku xiran janalkan halbeega wararka waxa ay naga xasuusinaa inaad janalkan subscribe dhahdaan calaamada kabeelka furta share like comment u saaxiibayaal kiina wayaan ayna ku bilownaa faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaasi waxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac warar kala duwan waxay ka soo baxayaan qasaare ka dhashay qarax saaki ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho qaraxan ayaa jugtiisa waxaa laga maqlay inta badan gudaha magaalada Muqdisho waxaa la sheegayaa inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso kaasi oo la egtay gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi lala beegsaday gaari noociisu yahay kaasi oo marayay iskooyska Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir ugu yaraan ilaa 3 askari ayaa ku dhintay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen ilaa 2 qofood oo shacab ay kuwaas oo marayay halka qaraxu ka dhacay maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhaca magaalada xilli laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya sheegayaan inay ku guuleysteen sugidda amniga caasimadda goobta ayaa waxaa soo gaaray qarax kadib ciidaman ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxaana halkaasi ay ka sameeyeen baaritaano kala duwan hay'adaha caafimaadka ugu dhow goobta ay soo gaareen waxaana halkaasi laga qaaday dadkii ku dhintay halkaasi iyo kuwii ku dhaawacmay ilaa hadda ma jiro waxa ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku aadan qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kaasi oo dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay war cusub ka soo saartay diyaaradihii tagi jiray magaalada Kismaayo oo maalmo ka hor hakad la geliyay dowladda federaalka Soomaaliya xilli maalmihii la soo dhaafay si joogteynaysa cadaadiska ku hayso maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay maanta soo saartay arrin kale maariyaha hay'adda duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin oo la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ka jira xayiraadda dhinaca duulista ah ee la saaray deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo maariyaha ayaa marka hore beeniyay in la hakiyay dhammaan duulimaadadii Kismaayo tagi jiray muddo 3 cisho waxa uu tilmaamay in arrintaas aysan jirin oo warqad rasmi ah oo ka soo baxday wasaaradda aysan jirin Axmed Macalin sidoo kale waxa uu intaas hadalkiisa ku sii daray hadii ay jiraan in xayiraad la saaray diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa jira kaliya ayuu yiri inay soo wargeliyaan ama ay la soo xiriiraan inta ay sameeyeen duulimaadkooda 24 saac ka hor hay'adda duulista rayidka ah maalmihii la soo dhaafay waxa caqabad xooggan ka taagnayd duulimaadada tagaya magaalada Kismaayo waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis xooggan saaraysay maamulka dowlad goboleedka Jubbaland uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe maalmo ka hor ayaa waxay ahayd kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed laga hor istaagay inuu duulo magaalada Kismaayo waxaana arrintaas ay timiday kadib markii diyaaradii uu ku bixi lahaa hakad la geliyay waxaana maalintii dambe dowladda federaalka Soomaaliya amar ku soo rogtay diyaaradaha tagi jiray magaalada Kismaayo waxayna sheegeen in aysan duulimaad ka sameey karin Kismaayo inta la gaarayo 26-ka bishan aynu guda jirno oo ku beegan maalinta Baritaa waxaana maalinta Baritaa ku beegnaday caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe walow dib loo dhigay caleemasaarkii madaxweynaha maamulkaasi xog cusub Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka badbaaday shirqool lagu dhaawacay rabay sumcadiisa xilli maalmihii la soo dhaafay isjiid xooggan uu ka jiray magaalada Muqdisho kaas oo ka dhashay handaadii loo geystay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka badbaaday shirqool sumcadiisa lagu dhaawacay rabay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dhawaan loo diiday inuu u duulo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka badbaaday shirqool sumcadiisa ay ku dhaawici lahaayeen dad dana gaar ah madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka badbaaday shirqool waxaana halkaasi la sheegayaa ama uu gaaray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaana halkaasi ka daabuli doontaa wafdi uu hogaaminayo diyaarad ay leedahay militariga Kenya
kuwaasi oo geyn doona magaalada Kismaayo si uu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. sida ay ogaatay warbaahinta markaan ka soo xoganayno caasimada online mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay gaari doonaan maalmaha soo socda ama qaarkood ay gaarin magaalada Nairobi si halkaas uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. xogtan ayaa waxay sheegaysaa in qaar kamid ah mas'uuliyiintaasi ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Xasan Cali Kheyr oo isugu jira wasiir ku xigeen iyo mas'uuliyiin kale oo saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan nabad iyo nolol. waxaana la sheegayaa in casuumaad ka heleen madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe dana ay ajibeen waxaase la ogeyn inay raaci doonaan diyaaradaha militariga Kenya kuna tagi doonaan magaalada Kismaayo si ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay carqalad xooggan ku haysaa qaabka looga qayb geli karo ama ay saameyn weyn ku yeelatay qaabka loo tagi karo magaalada Kismaayo si loo qayb qaato caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday qarax lagu khaarijin rabay. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Koonfur ula socday waxaa qarax miino lagula eegtay duleedka magaalada Muqdisho xilli ay ka soo ambabaxeen deegaanka Saniini oo maalmo ka hor ay weerareen xarakada Al-Shabaab halkaas oo ay ku gubeen gawaari kuwa kalena ay ka haysteen. wararka ayaa waxay sheegayaan in burbur xoogan uu soo gaaray gaariga uu saarnaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana xiriiro kala duwan ay noo sameeyay aan noo suurtagelin in wax badan ka ogaano hase yeeshee waxaa lagu soo waramayaa ama ay noo xaqiijinayaan saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya inaysan wax khasaare ah soo gaarin mas'uulkan ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. maalmihii la soo dhaaf waxaa Al-Shabaab ay sii joogteynayaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada militariga Soomaaliya ilaa haddana waxaan jirin wax warar ka soo baxaya Xasan Cali Nuur Shuute oo ku aadan qaraxan maanta lagu khaarijin rabay oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. amara culus ayaa waxaa laga soo saaray amniga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay amaro dhinaca amniga ka soo saareen amniga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne ay ka socdeen howlgalo kala duwan oo amniga magaaladaasi lagu xaqiijinayo. howlgalada ayaa intooda badan lagula dagaalamayay dadka isticmaala ama ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale hubka sharci darrada ah ee lagu dhex sito magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaana howlgaladii ugu dambeeyay ay saraakiisha ciidamadu sheegeen inay ku soo qabteen dad fara badan oo baandooriye isticmaalaya qaarkoodna iibinayeen. taliyaha guutada shanaad qaybteeda 27 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Colonel Farax Cali Waasuge Farax Koshin ayaa waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne laga dhex sameeyay howlgalo lagu xaqiijinayo amniga iyo kuwa lagula dirirayo waxyaabaha maanka dooriya. waxa uu sheegay in mararka qaar ay jiraan dad ku lug lahay amni darro ka dhaca magaalada Beledweyne kuwaasoo hub sharci darro ku dhaxwata magaalada. waxaana uu sheegay in aanan loo dul qaadan doonin arrintaasi hay'adaha ammaanka magaalada Beledweyne tallaabo degdeg ah arrintaasi ka qaadeen. dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kana tirsan qaybta 27 Dhamme Maxamed Cabdulle Aadan ayaa waxa uu sheegay in hubkan lagu soo qabto si sharci darro ah ay la wareegi doonaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya laguna celin doonin shakhsiyaadkani lagu soo qabtay hubkaasi. waxaa la sheegay in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Gudlaawe. wararka inaga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ahna caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay ku soo waramayaan in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa. khilaafkan ayaa waxa uu salka ku hayaa lacag dowladda federaalka Soomaaliya deeqaanusi maamulka Hirshabelle taasi oo gaaraysa waxaa jira mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo ku baxay xalinta khilaafkaas soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Hirshabelle. hase yeeshee ma jirto wax warahi oo ay soo saareen ama wax ka soo baxay dadaalkooda ku aadan xalinta khilaafkani. ma ahan markii ugu horeysay khilaaf xoogan soo kala dhex galo madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabelle kaas oo ku saleysan isqabqabsi la xiriira dakhliyaadka gobolka iyo dhaqaalaha loogu deeqo maamulka Hirshabelle. waxaa jira khilaafyo maalmihii la soo dhaafay ka dhex taagnaa madaxdaas ilaa hadda ma jirto wax xalahi oo khilaafkaasi la garay.
guud ahaanna warkii ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka saaxiibayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa isma dhaafno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.